بسم الله maanta taariikhda 14 bisha 12 2019 waxay maxkamadda Sinnaad iyo cadaaladda xukun ku riday eedeysane Lii Baliil ina Faadumo Buufis iyo eedeysane Lii Caato ina warsan YouTube labadan eedeysan oo lagu soo eedeeyay inay caato xad dhaaf ah eena ka hoos maran cabirka wasaaradda caafimaadka ee dejisay oo ah 40 kiilo labadan eedeysan oo kala ah Lii Baliil inuu yahay 36 kiilo sidoo kale Lii Caato oo yahay 37 kiilo marka maxkamadda Sinnaad iyo cadaaladda waxay go'aamisay in Lii Caato oo guursado fanaanada caanka ah Fartuun Balbalaarka nidaamka la toosiyo sidoo kale eedeysane Lii Baliil ayaa lagu eedeeyay sidoo inuu guursado maamo Faranko oo ku nool Australia waxay maxkamadda ka codsanaysaa maamo Faranko iyo Fartuun Balbalaarka inaysan ku xujeenin labadan xidig lacag iyo dahab iyo maalba